halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal idin hantiinba meelba waa joogtaan waa duhurnimo khamiis ay taariikhdu ku beegan tahay 8 bisha Febraayo sanadka 2018. arrimahan barnaamijka duhurnimada ku heynana waxa kamid ah sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegatay markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaanu dhageystayaal eegi doonaa caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay xukuumaddiisa, xaaladda dhanka ammaanka ee Soomaaliya iyo sida shacabka reer Muqdisho ay u arkaan sanadkii ay jirtay dawladda. Mareykankana waxa uu sheegay in dalka Suuriya uu ku dilay 100 ka mid ah dagaalyahano taabacsan dawladda Suuriya. waxa kale oo barnaamijka ku maqli doontaan shirkan waxaa martigeliyay wasaaradda arrimaha gudaha. waxay isugu yimid dalalka laamada Soomaaliya oo dhan, Kenya, Suudaan, Faransiiska, Talyaaniga iyo Belgium. waxaa la sheegay kaashanaya tahriibta si looga hortagi lahaa wax looga qaban lahaa. waa shir ku saabsan sidii looga hortagi lahaa taariibka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa iyo dabcan ciyaarihii. qodobada ay qodobo kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf, balse marka hore waxaynu ku hormaraynaa warkii caalamka iyo Axmed Nagaashi. mahadsanid Bashiir. sarkaal Mareykan ayaa sheegay in xulafada dalkiisu hogaamiya weerar dhanka cirka oo ay ku qaaday bariga Suuriya lagu dilay qiyaastii 100 ka mid ah ciidamo taabacsan dawladda. huwantu waxay sheegtay in ciidamo aad u hubaysan oo maleeshiyaadka ka tirsan ay weerareen xarun ku taala gobolka Deir ez-Zor oo fadhiisin u ah la taliyayaal militari oo Mareykan ah. telefishanka Suuriya ayaa sheegay in weerarada lagu taageerayay argagixisada. hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa la kulmi doona wafdi ka socda Kuuriyada Waqooyi oo ay ka mid tahay hogaamiyaha dalka walaashi oo ka qayb galaya xafladda furitaanka ciyaaraha Olympiga ee xilliga qaboobaha. laakiin kulanka lagaga hadli maayo arrimaha waaweyn ee ay ka mid ka yihiin dib u furidda aagga warshadaha ee labada dal wadaagi jireen. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa isaguna mar labaad ku nuuxnuuxsaday in tallaabo kasta oo wax lagaga qabanayo halista gantaalaha Kuuriyada Waqooyi u bannaan tahay dalkiisa. haweeneyda ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka Bangladesh kuwa ugu miisaanka culus Khalida Zia ayaana u suurtageli doonin inay doorashada baarlamaanka ee sanadkan ka qayb gasho kadib markii lagu helay dacwad culus oo musuqmaasuqa, waxaana lagu xukumay 5 sano oo xadhiga. dacwadan lagu qaaday haweeneydan oo hore dalka uga soo noqotay ra'iisul wasaare ayaa ahayd lacag loogu deeqay sanduuq khayri oo caruurta loogu talagalay oo la lunsaday. gudoomiyaha ururka midowga Afrika ayaa ganafka ku dhuftay oo ku tilmaamay been eedaymo sheegayay in Shiinuhu basaaso ururka oo qalab ku xidhay xarunta ururka ee ku taala magaalada Addis Ababa. wargeyska Le Monde ayaa bishii hore qoray in farsamayaqaano ka shaqaynaya xaruntu ay ogaadeen in kombuyuutarada yaalla xaruntaas oo Shiinuhu dhisay ay si joogto ah macluumaad ugu tabinayeen kuwa yaalla magaalada Shanghai. ugu dambeynna ergeyga Mareykanka u qaabilsan South Sudan ayaa BBC-da u sheegay in cunaqabataynta hubka ee Mareykanku ku soo rogay dalkaas ujeedadeedu tahay in fariin cad loogu gudbiyo dowladda madaxweyne Salva Kiir oo ah inay ka qayb qaadato wadahadallada nabadda. qiyaastii 4 milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalka sokeeye ee dalka ka socda. warkiina intaas ayuu ku egyahay Bashiir. nagaashi aad buu mahadsan yahay dhageystayaal, markana u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. waxaa dhageystayaal sidii aad maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu dhamaaday sanad tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimada ee Soomaaliya 8 bishii Febraayo sanadkii 2017. warbixino kala duwan ayaynu dhageystayaal ka diyaarinay sanad guuradaasi iyo waxyaabaha ku xeeranba. qaraxii ka dhacay isgoyska Zobe ee bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa waxa uu astaan u noqday mushkiladaha dhanka ammaanka ee ka taagan Soomaaliya. wariyaha BBC-da Cali Nuur Xasan ayaa warbixintan ku eegaya sida dadka ay uga soo kabanayeen qaraxaasi ay ku dhinteen in ka badan 500 qof. halkani waa isgoyska Zobe. waxaa laga dareemayaa zaxmad aad u xoogan. wadadu waa mid aad u mashquul ah. inta badan dadka halkan ku ganacsada ayaa goobjoog u ahaa ama ay waxyeelo ka soo gaartay weerarkii Oktoobar ee loo adeegsaday gaari xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. aniga waxaan ka mid ahay dadkii ku ganacsanayay xarumahan sarta Zobe hoosteeda. bartii uu qaraxa ka dhacay ayaan kula kulmay Cabdifataax Axmed Barkhadle oo 28 jir ah. waxaa wejigiisa ka muuqanaya dhaawacyo ka soo gaaray qaraxa.
barkhadle waxa uu halkan ku haystaa farmashiye kaas oo kusoo duldumay markii uu qaraxa dhacay waxa uu iiga waramay xusuustiisa. waxaan ku war helay anoo fadhiyo oo dhulka fadhiyo ayaan ku war helay kadib waxaan arkay mugdi badan anigoonan haysan oxygen aanan haysan anigoo xilligaas ku jiro xaalad aanan dareemi karin aanan qiyaasi karin laakiin aniga ma aanan maqal wax juuga xilligaas qarax dhacay ma aanan maqal laakiin waxaan dareemayay markii aan arkay mashaqada ay haysato kaligay wax aniga shakhsiyan ii gaarahan u malaynayay laakiin waqti kadib waxaan ogaaday waxa dhacay inay qarax yihiin. waxa uu ganacsigiisa dib u furay bishii Janaayo inkasta oo aanu weli qabin kalsooni ammaan oo buuxda haddana waxa uu ii sheegay in uu Ilaahay talada saartay. qaybo badan oo ka mid ah dhismooyinka ku hareeraysan isgoyska Soobe dib ayaa loo dhisay ama hadda ayuu dhismuhu ku socdaa waxaana taasi ay muujinaysaa adayga ay dadka Muqdisho ka dhaxleen dhibaatada ammaan darrida ah ee soo noqnoqotay. My vision is to defeat Al-Shabaab within the next 2 years. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilooyin yar kadib markii la doortay bishii February waxa uu ballan qaaday in kooxda Al-Shabaab uu ku soo afjari doono muddo 2 sano ah gudahood hase yeeshee dadka indha-indheeya arrimaha ammaanka ayaa aaminsan in ay adag tahay in Al-Shabaab looga adkaado muddada uu madaxweynuhu qabsaday. xasan sheekh imaam waxa uu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho. dalkan guud ahaantiis waa dal ballaaran oo dumay si aad dib loogu dhiso wuxuu u baahan yahay laba mid u baahan yahay in la helo dad ama koox xoog leh oo wadanka intay gees ka bilaabaan gees kale uga baxa oo aan wax ka horreeyay oo institution iyo dowladnimo iyo nidaam system aan fiirin oo wadanka ku qabsada xoog waa okay waa talabaad waxay tahay in la galo wada hadal oo dadku ay is aqbalaan Soomaaliyeed oo marka ay isla ogolaadaan inay qaran noqdaan oo marka dadku ay dowladda hubka ay haystaan ku soo wareejiyaan oo ciidamo qaran oo sax ah oo kalsooni lagu qaba la dhiso oo marka institution shaqeynaya la sameeyo hadda marka saas lama sameeyo dowladdu xoog ma qabto oo ay gees inta ka martay gees kale uga baxdo dibushiin ma sameynayso oo dadka kalsooni kama kasbanayso. haddaba dadaalada ay dowladdu qaaday waxaa ka mid ah in la dardargeliyey howlgallada ay fuliyaan ciidamada isku dhafka ah ee loo bixiyey xasilinta caasimadda kuwaasi oo baara shacabka iyo baabuurta Muqdisho. Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho. cali nuur aad buu mahadsan yahay. haddaba aan eegno dhinaca aragtida dadweynaha iyo sida shacabka reer Muqdisho ay u arkaan muddadaasi ee jirtay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. magacii waxaa la yidhaha Shiine Maxamed Cali oo degan magaalada Muqdisho. runaantii madaxweyne Farmaajo waxyaabo qabsoomay runaantii sida amniga runaantii qaraxyo faraha badnaay Muqdisho waa ka yaraa saan filayno laakiin hal mid madaxweynaha oo ah wadooyinkii magaalada Muqdisho baabuurta amreynay waxa way runaantii meel kasta isgoys walba oo magaalada Muqdisho ka mid ah way xirxiran yihiin. madaxweynaha Soomaaliya wuxuu noo ballan qaaday wuxuu sameeyay ballanqaadyo badan si uu bulshada u soo kasbado uu doorashada ugu soo guuleystay ballanqaadyada uu sameeyay qayb kamid ah fuliyay qayb kamid ah wuxuu ka gaab sameeyay ama waxyaabaha aan u suurtagelin inuu maanta uu kala qayb qaato bulshadiisa ama uu sar u qaado waxa kamid ah dhanka amniga oo weli dhaleecayn ay ka taagan tahay haddii aan fiirino dhanka amniga oo wadooyinka ay isku xun yihiin wadooyinka oo mararka qaar oo la xiraayo kale midalan adigoo maanta arday jaamacadda aad u socotid waxaad arkaysaa wadadii u xiran. kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo ra'yigooda ka dhibanaya sida ay u arkaan sanadka ee jirtay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba dhegeystayaal BBC da laanta afka Soomaaliga ayaa caawa 9 fiidnimo ama 3 saac oo habeenimo waxay si toos ah u wareysan doontaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba dhegeystayaal haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad weydiiso madaxweynaha Soomaaliya oo marti ku noqon doona barnaamij looga hadlayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu xilka qabtay waxaad fadlan su'aalahaasi inagu soo gudbin kartaa barteena Facebook ee BBC Soomaaliya. markana dhanka wadanka Suuriya sarkaal u hadlay isbahaysiga hogaamiye Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in weerar cirka ay dhulka ay ku dileen 100 dagaalyahan oo taabacsan dowladda Suuriya. talaabadan ay xulafada hogaamiye Mareykanka ku sheegeen inay tahay mid daba joogta weerarkii lagu qaaday gobolka Deir ez-Zour. wariyaha BBC da Charles Haviland ayaa ka warramaya. weerarkan ayaa waxa uu ka mid yahay weerarada Mareykanka uu ku qaado ciidamada Suuriya iyo xulafadooda. sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in xoogagga dowladda daacadda u ah ay weeraro ku qaadeen ciidamada Kurdiyiinta ee loo yaqaano SDF kuwaas oo saldhigoodu yahay bariga webiga Al-Furaat. sarkaalka ayaa waxa uu intaas ku daray in dowladda Suuriya ay isku dayeysay in ay la wareegto ceelal shidaal ah oo ay markii hore
gacanta ku hayeen kooxda isku magacawday dowladda islaamka. dhanka kale isbahaysiga ayaa sheegay in weerarkan argoosiga ah ay ku nafwaayeen ilaa 100 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda, balse koox kormeer ah ayaa sheegtay tirada la sheegay in ay dhimatay ay intaasi ka yar tahay. firdowso cusmaan aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal. saacadda geeska afrikada bari waa 2:09 halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa BBC. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso musawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo la soo dhaafay markaasi ka socday magaalada Hargeysa. shirkan ayaa waxa ka qayb galay dalal ka socda bariga Afrika. shirkan oo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ee lagu qabto Jamhuuriyadda Iskad ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland ay wax marti gelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland. waxaana sidoo kale shirkan goobjoog ka ahaa khubaro dhinaca socdaalka oo ka socda dalal ka tirsan midowga Yurub oo iyagu dhibaato ay ku hayso dadka tahriibka ah ee markaasi ku qulqulaya qaaradda Afrika. haddaba wariyaha BBC-da Axmed Saciid Ciga ayaa warbixintan inaga soo diray Hargeysa. shir hawleed ku saabsan la dagaalanka tahriibta oo ay ka soo qayb galeen dalal ka tirsan bariga Afrika oo muddo 4 maalmood socday ayaa la soo gabagabeeyay. yaasir Saleebaan Cabdi waa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland oo iyadu marti gelisay shirkaasi. shirkan waxaa marti geliyay wasaaradda arrimaha gudaha, waxay isugu yimid dalalka laamuda socdaalka oo dhan, Kenya, Suudaan, Faransiiska, Talyaaniga iyo Belgium ayaa isugu yimid. waxaana la iska kaashanaya tahriibta si looga hortagi lahaa, wax looga qaban lahaa, maadaama noqotay Somaliland wadan la dhex maro oo marna Itoobiya loo gudbo dhalinyaradeena badda ku dhamaato, marna ay xaggan gurto inoo dhaafto xaggan iyo Soomaaliya badaha Yemen iyo ay ku qarqoonto. marka maxaa laga faa'iiday markaasi in ku casuunteen dhalinyaradii iyo cid ay khusayso? ahmad ku casuunay civil society oo maalin la tababarayo, imkan waxa lagu casuumay ciidamada laamaha socdaalka iyo ciidanka xeebaha oo la tababarayo oo lagu xulayo immigrationada wadamada kale saadi qof la waayo kale ay sawirkooda u gudbiyaan meesha uu sii gudbilaa si loo soo celiyo Somaliland hesho dadkiisa dib ugu soo noqoto. bariyahan dambe darkayso halkan insaada dad waad sheegtay inta ka soo galaan wajaale dad tahriibayo Itoobiya u badani ay dadana maraano ilaa xagga dadana waxay ka boosaasi agteedii xagga bariga ay ka dhoofaan kuwa wad laga qabanay bariyahan arrimahaas oo kale ma laga hadlayo kuwan kale iyaguna inta ka baxaan halkan ilaa iyo Itoobiya maray Suudaan maray Liibiya maray halka badda Mediterranean-ka Yurub gudba. waxa ugu badan Axmed oo laga hadlayo waa socotada oo iyagu noqday aan garoon meel ku socdo dad tagayo dalka markay ku soo noqdaan la garanay inaga la ugu soo tababaro lagu soo celiyay inay dalka kale waxay ka soo barteen oo far badan ay European Union aad uga hadleen inaan xakamayno Soomaaliland maadaama tay isku xulka weyn ee jeenka laba dacalba la soo gudbo. marka wasaaradda arrimaha gudaha hoolka weyn bay qaadanaysaa in ciidamada amarto oo la xakameeyo oo arrimahaas oo dadka tahriiba waxa u badan dhalinyarada gaar ahaan marka ay shaqo waayaan. ardayda jaamacadda Hargeysa qaarkood ayaa waxa aan weydiiyay ra'yigooda ay ka qabaan bariyahan dambe tahriibta. bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa Cabdixaliil Cali Hawse. tahriibtu waa aafo qaran oo maxay waddan kasta saamaysa khaasatan Somaliland. dhalinyarada Somaliland runtii waxaan oran lahaa waa halkal baa uga jeedi lahaa waa inaanay dhul kala aadin waayo waddankooda aaminaan. waddankooda waxa weeyaan waddan maxay soo koraya wadamada horumaray dadka iyo khayraadka kala badan. khayraadka ayaa yar dadka ayaa badan halka dhulkeenu ee Somaliland khayraadkiisu badan yahay laakiinse waxa dadkiisu yar yihiin. sabab waxaan karnaa waddankeena aadna lagu fiican yahay waddankeena aadna. السلام عليكم magacaygu waa ayaan maxamed waxaan rin lahaa tahriibtu waa dhibaato dhalinyarteena haysata dhibaato badan ay ka soo gaadho especially dumarkeena oo la kufsado oo dilma ay ka soo gaadho waxaan rin lahaa dhulkeena barwaaqa taala dhulkeena ka faa'iideysanaan ka shaqaysano. magacaygu waa Xasan Salaam. tahriibtu dhibaatooyinka leedahay waxaa kamid ah kuwii tahriibi waa la doostaa qaarkood kuwii ugu dheer badbaadiyay tirmartigay dhibaato taaleeg baa haysta. marka tahriibtu dhibaatadaas leedahay dadka ugu digay iyo dhalinyarta. si kastaba ahaatee bariyahan dambe ayaa waxaad moodaa in tahriibtu ay soo yaraanayso dhalinyaraduna ay ku baraarugeen in ay shaqooyin gaar ah ay abuurtaan oo xataa markii hore ay ka faani jireen. Axmed Saciid Ciga, BBC Hargeysa. ka
qaybgal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxay tahay text message taleefonka nambarkiisu yahay 4478620090 kadib waxay kula tahay BBC Somali وهاجا خيرتنا dhageysanaysaa markana ciyaarihii weeraryahanka kooxda Manchester United dhanka weerarka u qaabilsan Alexis Sanchez ayaa aqbalay in meesha laga saaro xukun xabsi oo gaaraya 16 bilood kadib markii lagu soo eedeeyay inuu la dhuuntay canshuurta waxaana uu aqbalay Valerie inuu bixiyo lacagahaasi canshuurta Alexis Sanchez ayaa la dhuuntay lacag dhan 1 milyan iyo 200 kun oo dollar lacagtaasi oo ka helay Valerie xayisiimaha sanadkii 2012 ilaa sanadkii 2013 Sanchez oo dhawaan ku soo biiray kooxda Manchester United ayaa lagu inuu yahay ciyaaryahanka ugu mushaarka badan kooxdaasi United sidoo kale ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa iyaguna sidaas islamada mudooyinkii dambe loogu soo eedeeyay in ay la dhuunteen canshuurta markana baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Samiira Cabdullaahi Jaamac Samiira mahadsanid Cabdiqaadir baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Maxamed Daahir Yuusuf oo jooga xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxa uu baafinayaa Daahir Yuusuf aadan oo markii ugu hordanbeysay ku sugnaa magaalada Muqdisho sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo Daahir Yuusuf aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Daahir Yuusuf iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino Maxamed Xuseen Cabdi oo jooga xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxa uu baafinayaa Axmed Xuseen Cabdi waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Wajeer sanadii 1990 haddaba haddii uu maqlayo Axmed Xuseen Cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Xuseen Cabdi iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino عبدي إبراهيم عبدي oo joogta xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxa ay baafinaysaa Fartuun Ibraahim Cabdi oo markii uu wardambeysay ku sugnaa magaalada Kismaayo sanadii 2012 haddaba haddii ay maqlayso Fartuun Ibraahim Cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdi Ibraahim Cabdi iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino Kuula Maxamed Cabdi oo jooga xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxa uu baafinayaa Xasan Maxamed Cabdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Jidda dalka Sacuudiga sanadii 2011 haddaba haddii uu maqlayo Xasan Maxamed Cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Kuula Maxamed Cabdi iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino ama telefoonka nambarkiisu uu yahay 252638 Dahab Nuux Cabdi oo jooga xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxa uu baafinayaa dadka kale ah Shukri Sahal Cali iyo Faadimo Budul Cali oo markii ugu hordanbeysay ku sugnaa qaaradda Yurub sanadii 2012 haddaba haddii ay maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Dahab Nuux Cabdi iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino amaba telefoonka nambarkiisu uu yahay 967 Xaawa Cabdullaahi Cabdi oo joogta xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxay baafinaysaa Isaaq Maxamed Aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya sanadii 2010 haddaba haddii uu maqlayo Isaaq Maxamed Aadan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xaawa Cabdullaahi Cabdi iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino Abshira Aadan Ibraahim oo joogta xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxa ay baafinaysaa Shukri Aadan Ibraahim oo markii ugu hordanbeysay ku sugnaa dalka Itoobiya sanadii 2009 haddaba haddii ay maqlayso Shukri Aadan Ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Abshira Aadan Ibraahim iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino amaba telefoonka nambarkiisu yahay 658 Hayba Cabdi Xirsi oo jooga xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxa uu baafinayaa Xuseen Kaboole Cabdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan fiiltu 1996 haddaba haddii uu maqlayo Xuseen Kaboole Cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Hayba Cabdi Xirsi iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino Xasan Cali Ducaale oo jooga xerada qaxootiga ee Buur Aamino waxa uu baafinayaa Xabiibo Cali Ducaale oo markii ugu hordanbeysay ku sugnaa dalka Mareykanka sanadii 1997 haddaba haddii ay maqlayso Xabiibo Cali Ducaale amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Xasan Cali Ducaale iyadoo wixii war loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buur Aamino
aamino amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 9 cali xuseen kuulow oo jooga xerada qaxootiga ee buraaminana waxa uu baafinayaa cabdulaahi xasan ibraahim waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo cabdulaahi xasan ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cali xasan kuulow iyadoo xibraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buraamino ama telefoonka nambarkiisu yahay 226 ubax cali maxamed oo joogta xerada qaxootiga ee buraamino waxa ay baafinaysaa aways cabdi maxamed oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa magaalada jigjiga sanadii 2004 haddaba haddii uuna maqlayo aways cabdi maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo ubax cabdi maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buraamino amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 9 eber 277 faysal maxamed xuseen oo jooga dalka Ethiopia waxa uu baafinayaa farxaan maxamuud cabdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Switzerland sanadii 2005 haddaba haddii uu maqlayo farxaan maxamuud cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo faysal maxamed xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Ethiopia ama telefoonka nambarkiisu yahay 256 eber 572 xabiibo maxamed cali oo joogta xerada qaxootiga ee buraamino waxa ay baafinaysaa bare aadan cali oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa dalka Itoobiya sanadii 1989 haddaba haddii uuna maqlayo bare aadan cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xabiibo maxamed cali iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buraamino amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 9 maxamed cabdinuur cali oo jooga xerada qaxootiga buraaminana waxa uu baafinayaa axmed isaaq cabdiraxmaan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada cadan ee dalka yemen sanadii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo axmed isaaq cabdiraxmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo maxamed cabdinuur cali iyadoo wixii war ahna loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buraamino ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 يوسف عمر محمد يوسف أحمد محمد يوسف كذية محمد يوسف أو مركي وردن بيس كسبنا بلك إتوبيا سنة يكون سغال بقل سغاشن يتضبدي هذا بهدي أين مقليان بدكاسي أما باي جستعد قرانا يسفلنا وركودها لقاسي فوزية محمد يوسف يدو حوار الله سي مرين كرا حفيز كبافن تبش عسى كل راي حرد قحوتي جاي برامنو أما بتلفون كنا بركيسو يهي إبر سغال صدح تضوى سديت صدح لحل شن تضوى عبد النور علي إبراهيم أو جو حرد قحوتي جاي برامنو نوحا وبافنيا محمد طلال إبراهيم وحقور دنبيسي سوغو كسوغن إيمي بري سنة لبادي كون يكوبي يتوانكي هذا بعد وانا مقلوه محمد طلال إبراهيم ويجر تعد قرانا يسافد لمركيسا لقارسيو عبد النور علي إبراهيم يوضو حواره لو سيمارين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا حرد قحوتي برامنو آدم بيعس حراد أو جو حرد قحوتي برامنو وحاو بافنيا مقتار يوسف شيق أو مركي هو دنبيسي كسوغنا مقالة عيلوا سنة لبادي كون هذا بعد وانا مقلوه مقتار يوسف شيق أما بقى جرت عد قرانا يسافد لمركيسا لقارسي آدم بيعس حراد يوضو حوار الله سيمارين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا حرد قحوتي برامنو أما بالتلفون كنا بركيسو يهي لبا شن لبا لح هل سديد لبا إبر سديد هل لح سهلا إرشاد حسين وجوكت حرد قحوتي برامنو waxay baafinaysaa dadka kale ah Cabdiyare Irshaad Xuseen Cabdullaahi Irshaad Xuseen Abli Xuseen Barre Axmed Xuseen Barre Cali Xuseen Barre Isniin Xuseen Barre iyo Maxamed Cabdi Wardheere dhammaan dadkaasina waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Gaarisa sanadii 2000 haddaba haddii ay maqlayaan dadkaasi ama way jirto cod garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Sahlan Irshaad Xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Buraamino ama telefoonka nambarkiisu yahay 256 عبد الدبد علي oo jooga xerada qaxootiga ee Buraamino waxa uu baafinayaa Maslax Ali Xasan oo markii ugu dambeysay ku sugnaa dalka Itoobiya sanadii 1977 hadaba hadii uu maqlayo Maslax Ali Xasan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdi Dubad Ali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buraamino ama telefoonka nambarkiisu yahay 256 eber 5 eber Garaad Cabdullaahi Taqal oo jooga xerada qaxootiga ee Buraamino waxa uu baafinayaa xiirana digalle shaacib waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 1977 haddaba haddii uu maqlayo xiirana digalle shaacib ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Garaad Cabdullaahi Taqal iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Buraamino محمد بيو عثمان oo jooga xerada qaxootiga ee Buraamino waxa uu baafinayaa Maxamed Shiidow Malak
maxamed shiidow malaaq oo markii ugu dambeysay ku sugnaa dalka liibiya sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed shiidow malaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyey maxamed biyo cusmaan iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buur aamino amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526937763 ibraahim gaabow xasan oo jooga xerada qaxootiga ee buur aaminona waxa uu baafinayaa cabdinuur maxamuud cadow waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan qoryooley soomaaliya sanadii 1998 haddaba haddii uuna maqlayo cabdinuur maxamed cadow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan la gaarsiiyo ibraahim gaabow xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buur aamino ama telefoonka nambarkiisu yahay 2593479167 aadan maxamed cabdulle oo jooga xerada qaxootiga ee buur aamino waxa uu baafinayaa aadan cabdulle cusmaan oo markii ugu wardambeysay ku sugnaa dalka koonfur afrika sanadii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo aadan cabdulle cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo aadan maxamed cabdulle iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buur aamino amaba telefoonka nambarkiisu uu yahay 2526147558 bilow yuusuf cali oo jooga xerada qaxootiga ee buur aaminona waxa uu baafinayaa mustaf sheekh cabdi cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada johannesburg sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo mustaf sheekh cabdi cabdulaahi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo bilow yuusuf cali iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buur aamino raaxa dhicis xareed oo joogta xerada qaxootiga ee buur aamino waxa ay baafinaysaa xaliimo cabdi buuraale oo markii ugu wardambeysay ku sugnayd dalka kenya sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlaysa xaliimo cabdi buuraale amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo raaxa dhicis xareed iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buur aamino amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526532635 xasan bashiir sheekh cumar oo jooga xerada qaxootiga ee buur aaminona waxa uu baafinayaa faadimo bishaaro sheekh cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan baled xaawo sanadii 1991 haddaba haddii ayna maqlayso faadimo bishaaro sheekh cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo xasan bashiir sheekh cumar iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee buur aamino shankaroon bila cabdalla oo joogta xerada qaxootiga ee buur aamino waxa ay baafinaysaa qamar bila cabdilla oo markii ugu wardambeysay ku sugnayd dalka Australia sanadii 1998 haddaba haddii ayna maqlayso qamar bila cabdilla amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo shankaroon bila cabdilla iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buur aamino amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526511558 baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay ruqiyo mooge maxamuud oo joogta xerada qaxootiga ee buur aamino waxayna baafinaysaa misaal mooge maxamuud waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlayso misaal mooge maxamuud amaba ay jirto cid garanaysa fadla warkeeda la gaarsiiyo ruqiyo mooge maxamuud iyadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee buur aamino baafintiina maanta waa naga intaa cabdiqaadir samiir aad bay u mahadsan yihiin waxayna la socodsiinayeen baafinta dhegeystayaal hadduu eebaydma caawa 9 fiidnimo laanta afka soomaaliga ee b b c da waxay wareysi gaara la yeelan doontaa madaxweynaha soomaaliya waxaana wareysigaasi si toosa loogu tabin doonaa idaacadda fiidnimo welibana sidoo kale telefishinka b b c halkaasi oo aad ka dhegeysan doontaan ama aad ka daawan doontaan wareysigaasi oo madaxweynaha soomaaliya uu kaga hadlayo waxyaabihii ugu waaweynaa ay dowladdiisa u qabsoomay caqabadihii horyaalay iyo sidoo kaleeto waxyaaba markaasi ay diiradda saari doonaan haddaba dhegeysta haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad weydiiso madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo caawa marti kuwa barnaamijka looga hadlay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay tan iyo markii xafiiska loo doortay waxaad fadlan su-aalihiina inoogu soo gudbin kartaan boggeena b b c somali facebook halkaasi waynu markaasi u gudbin doono madaxweynaha waxyaabaha doonaysaan in markaasi uu ka jawaabo waxaana sidoo kaleeta wareysigaasi hadduu baydma aad ka daawan kartaan dhegeystayaal b b c somali t v oo sidoo kale si toosa ugu daawan doontaan intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya idaacaddii duhurnimo uu soo saaray cabdiqaadir waxaan idinla socodsiinayay anigoo bashiir maxamed caata dhanka warkana waxaynu akhrinay xamna gaasha tan iyo 5 galabnimo intayna dib hawada u kulmi doono waa dhammaan asxaabtayada isku duuban oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo